soo dhawaada barnaamijkeena Gungaar oo aan ku dul istaagi doono macaalinkii dilaaga ahaa iyo shabakadiisu ay burburiyeen booliska gobolka Banaadir kuwaas oo qaarkoodna la qabtay oo ay cadaalad mareen qaarna la hayo xogtooda oo lagu raad joogo magacyadiisa afgarashada ay kamid Daadir Xaaji ilka Xudayfa iyo Cadaawe waxa uu ahaa howlwadeenkii ugu weynaa al-shabaab gobolka Banaadir waxa madaxa dilalka qorsheysan ee gobolka Banaadir horta asalkii Xudayfa aan ku ah group fara badan oo aan la soo markay badbadelayna magacadan asmada group walba lagu soo bedel magac cusub waay Cadaawe la baxay rakacasan la baxay maxamed waxa uu kaga duwan yahay dhalinyaradii hore aan ku soo qaadanay barnaamijyada Gungaar waa macallin jaamacadeed oo haysta shahaadada heerka labaad ee jaamacadda mana ahan wiil yar oo aan wax baran oo la marin habaabiyay haddaba inta aanan u gelin sheekooyinka Maxamed Xaaji Ilka Case ee la xiriirta dhagridda bal aan marka hore eegno isagu waa kuma la fahantiisa ayaa noo sharaxaya Maxamed Xaaji heerarkiisa waxbarasho sidii kala dugsigii hore markaas aan ka soo baxay markaas oo idin kaga sheegaysan markaas oo culumta diinta aan ku soo baxay oo taxadka ay lahaayeen xaq diin ahaan markii la kutubada soo akhristay oo dhowr ay u badan yihiin saalixiinka iyo bilowal maraamka iyo tajriis waxaan kutubada tajwiidka iyo kutubada kala jihaadiga wax badan soo akhriyay سواء مش اللي يقدر تبقى حافظ على عوالم لك مريض من حافظ القرآن حق دين تسوى مركب ديك سوا صدق حاسو دمي ساعات كذا كون يسديد السوق سديد صديق إسلا أكاديميك حاسو قد بيبقى مركب كبلاو ديك سوا سارة حاول 2011 لابد كون يسديد يو كوي توانك إلى لابد توانك حيسا أنا أخوانتي الجامعة سو قالي لو طبعا كي لا يلحي طبعا كان لقينا شهادة بي إذا خاطئ كدي بوحان قالي مع إنجليش كلو برتو مقال كوعز بفرونتير لها عنك خاطئ شهادة دبلوم إنجليش أسستنت أنا إيه خاطئ مركي عنك سو أسستنت أنا إسلاقي وحان عنك نخلو مع معنى إنجليش أكاديميك إنجليش عن ليها مركا دولة كلا هذا جامعة مقدشان بلاوي ماستر environmental study halkan waa maxadka Frontier oo lagu barto luqadda Ingiriiska waxaana uu ka ahaa macallin Ingiriis Maxamed Xaaji Ilka Case isagoo fasalkan ardayda kula wadaagi jiray duruus of preparation one of the international exams of the world. It's a center which provides and prepares IELTS preparation. I think in general East Africa we have only few countries that operates and prepares the IELTS and the TOEFL. Frontier became the very first college started preparing the method of macalinka dilaaga noqday Maxamed Xaaji waxa uu horjoogo ahaa shabakadii ugu halisareed al-shabaab ee Muqdisho ka geysata falal argagixisanimo waxaana sida ku xashaxda booliska gobolka Banaadir madax u ahaa qaybta dilalka qorsheysan ee shabakadan Maxamed Xaaji iyadoo uu ku xigeen u ahaa Sharmaaka Cumar Axmed oo loo yaqaan ugaaska ama ganay kaasoo ay hayeen xogtiisa iyo sawiradiisa booliska gobolka Banaadir ayna ku raad joogaan Axmed Faarax Iidle oo magacyadiisa afgarashada ay yihiin Shuuriye Madoobe Nuunow iyo Ramadaan Cabdiraxiin Mursal oo la baxay Saalax waxay ka tirsan yihiin shabakadan dilalka qorsheysan qaybta istikhbaaraadka ama sahanka waxay ahayd shabakad kale oo ka tirsan kooxda Ilka Case waxaana ku xigeen u ahaa dhinacaasi Saalim Saciid oo ay gacanyareyaal u ahaayeen Haashin Carab Faadimo Korneylo Maryan oo ah xaaska Saalim Cabdiraxmaan Sheeba iyo Cabdinaasir Axmed oo ah maqanayaal ay boolisku ku raad joogaan Maxamed Xaaji Ilka Case waxa uu ka mid yahay dhalinyaro dhowr ah oo al-shabaab ah oo aan horay u soo wareysay kuwaas oo fikirka takfiirinta iyo xagjirka lagu soo baray dugsigiisa Quraanka taasoo ah halka uu kala jaaday al-shabaab fikirkan wuxuu u shaani fikir oo aniga weyn ah waa ka yaraa macna markii
aan tusaalahan dugsiga hoose dhexe markaan dhiganaay dugsiga quraanka dhexe dugsiga quraanka aan dhiganaay wuxuu ahaa dugsi itixaad ay leeyihiin xiligaas dugsiga aqwaanka hal jir gobolka oo dhan waa looga imaan jiray marka la markaas ahaan xiligaas suufiya ku badneed magaalka iyo gobolka laakiin magaaladaasi waxa loo imaan jiray dugsiga la aqwaanka oo caan waa dadka bol mar dugsiga aqwaanka dadaaday ameel aanada oo sheegi karo marka dugsiga waxa macallimiin oo ahaa banaman oo xiligaasi oo itixaad ka dagaalam jiray oo nin la dhaho macallin Suleymaan nin la dhigi jiray oo howlgaladii calal ka dhici jiray Ethiopia ku baxay maxamed xaaji ilka xasan shaqadiisu ka soo bilaabay magaalo xeebeedka Marko halkii uu ku soo dhigtay dugsigiisa sare waxaana uu ku doodayaa in dugsiga sare uu soo dhigan jiray ay saameyn ku lahayd kooxda al-shabaab kuna soo booqan jireen horjoogayaal ka tirsan kooxda xiligaas dugsiga waxaa noogu imaan jiray waa xili hore Sheekh Fuad waa nin iska yaraa xiligaas xogaa da'ahana nin weyn u egyahay iyo aadan xaashi iyo nin la dhaho maxaa la jiray Cabdullaahi Salaad iyo Abu Zubair meesha ugu waajir kale ma ka jirin xiligaas laakiin ilka xasan waxa uu Marko uga shaqayn jiray hab jaajuusnimo oo isaga koox kale ay ka dhex shaqayn jireen inay macluumaad ka ururiyaan dadka kooxda ka tirsan iyo dadka ku dhex nool deegaanada ay ka taliyaan waxayna ka warbixin jireen wax kasta oo kooxda dhexdeeda khatar ku ah balse markii ay dawladdu la wareegtay magaalada Marko waxay isla iyagii laga dhigay koox qaabilsan qalqalgelinta amniga magaalada Marko dawladdu marka meesha oo soo tashatay markii isoo galeen oo markii kor laga soo wareegtay calash ilaa iyo markii magaalada marka la qabsadayna ragii daaqiliga ahaa ayaa waxa la yiri qaarijiga isku bedelay dawladda imaaday daaqil uu ku soo baxay ninkan qaarijiga ana taasoo qaarij ayaga howlgala ilaa dadka ayaa yaqaan oo intaan ku soo koray muqt ki isbedelaayo ki jaasus ah askarti dad cusub hadii loo keeno yaani dib way naqaan in loo tilmaamo laakiin anaga wada naqaana ma laga shakisan hadana sidii waxa la jiray aan ku bilaabay hawshii ugu horeysay kooxdan wiilka xasan ka mid ahaa ay Marko ka qabtaan waxa ka mid ahayd dilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Xaajow kaasoo ka shaqeynaya Xaajow Bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay maxamed ilka xasan in dilkaasi uu geystay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen Asad aan shakhsiyan aqaanu ahaa yani nin fiican oo ahaa dawladda u shaqeynayeen waxba muusan ahayn meesha station road ku joogay footadaas uu iska joogay famil ahaana yani waa dad aad loogu yaqaan footada iyo sawirada dadkaas xiligaas gobolka dhanba laga yaqaan sawirka dugsiga sare shahaadada xataa isaga yaqaan banaankan joogay oo meesha isaga station roadtiisa munishibi meel la ku tala sarta dheereed oo muxaadarooyin wax lagu qaban jiray anoo xagga taagan aan waxaan arkaa anug oo marka dambe dhiman doono oo boodbooda la dhahay doono amesh taaganay Asad telefoon intuu qabto wuxuu dhahay waraan imanka wada carreen gabigooda wallahi fulay waay shaabti iyo wixii iyo kan boodbooda wax muusan hubsan ninka ku bilaabay abaar marka xabada anaga soo wada orad meesha ka imaanay ninkii jiifa aragnay ninkan bas wala xariisana bas ninkan soo wadnay waxa dhacay saan u dhahay ninka u dhahay telefoon soo ku hadlay telefoonkiisa waa kaasa anoo meesha taagan u dhahay nimanka soo galeen wuxuu gudbinay Asad markaas uu noolaa ana waa arkay ana paralyze uu noolaa yani meed ahaan uu soo tagana laakiin markaas uu noolaa Asad marka dadka ma sukaan yaqaanaan qaarkood si kale saaxiib waa una footada iyo wixii marka ma ku darsamin baan hadhow si far ii soo galin banaankan ka istaagay maxamed xaaji ilka xasan waxa ka mid ah waxyaabaha cajiibka leh ee uu sheegay in markii magaalada Marko ay dawladdu la wareegtay uu la noolaa Jeneraal Ismaaciil oo caruurtiisa uu saaxiib la ahaa iskuulkana wada dhiganayeen wuxuuna barnaamijka gungaar u sheegay in maalinkiina uu gabaad u ahaa guriga jananka habeenkiina uu isla guriga bambooyin ku tuuri jiray si uu u dilo jananka uu gurigiisa ku noolaa ee uu la tacaamulayay sida caruurtiisa oo kale آخركينا وحاو مركي ومركا كدلي وهي وجنرال إسماعيل أحمد عثمان مكيالي كدلي سيديد يلواتنكي بشي تمنا سندكي لبدي كوني اللحي طبانكا دقمدا وابريا مقالة مقدشو نين وحال جري إسماعيل جاشان اللحي أها وعن وايس شنامدا عن كامركا كتار شيخ إسماعيل مركيالو دمغا شانيك اللهوا جنون لكن سيدبروها markii dawladda ay dadkii xagga markii shabaabka ay qabsadeen asal
oo shaleemada laga burburiyo laga bursado ahaa meesha intuu imaaday dawladda uu soo hubeeyay dib loo sii jirnay waxa la jiray darajadiisa markuu soo weeraray si kala daan u dhigay marka aniga iyo wiilashiisa saaxiib waa ahayn shaleemada Ismaaciil guriga ku dhiganaa buu deganaa baan weligeed magaalada markuu soo galay gurigiina waa deganaa ninkaana janan waay adeeraan iska dhaha marka mugta ilmiisna saaxiibana ninkii aameesh dadka qabtay ku mid ah marka Abdulqaadir Siidi isagii gurigaas qabtay ninkaasna waxa waay dadka isaga iyo ciidanka iyo dadka si gaar ah u beegsan ka mid ah isaga dhowr mar oo aan shakhsiyadii iga badbaaday oo aan gurigiis bam ku tuuray ciyaalkiisa saaxiib waa ahayn hadda marka dambe intaan ku helay ninkii waxaasna way soo dhamaadeen waa la soo weynaaday jaamacada la dhamay darad oo Muqdisho kan 2 sano ka hor iyo hal sano ka hor inay tahay jara Liberian ku helay Ismaaciil asoo Interpol oo shaqeynaa booliska مود شن سنة لح سنة كسوريت إنك dadkii meesha waxa soo baaba inta la isleeyahay moogta laakiin to imaaday isagoo sarkaal la sii dalacsiyay oo yani Interpol u shaqeeyay wiilashiisa saaxiib waa ahaan anaga marka si hadii loo dhaano xoogaa waxaan ugu jira adeernimo iyo wixii qaraabo maniin laakiin adeer iska dheena laakiin haddana hooshii ana bariis adeer iyo waxa inaan ana ugu dambeyn hada ninkii saaxiibkayga Hashimi afarsameenka iyo ani shuri dilka Generaal Ismaaciil kuma uusan ahayn Maxamed Xaaji kaligiis waxa ka qayb galay Haashim oo kamid ahaa shabakada Ilka Case waa kan Haashim oo isagana ka sheekeynaya qaybtii uu ku lahaa dilkaasi wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo isgooska waa beri isgooska shaqaalaha uu fadhiyay meesha laga soo doorahay haddan ayadana markaadna oo seminaarka maadal sheey Talyaani ma sarkaal waxa marka xaafadu soo galay xaafadiyaan kala soo dawgalnay markay taasan ogaa sidoo kale Maxamed waxa uu sheegtay inuu gacantiisa ku dilay Xaaji Baana oo kamid ah waxgaradka magaalada Marko xilli uu masjid ka soo baxayay waxaana isaga dhagar qabayaasha la socday banayseen dilka qof muumin ah oo ka soo baxay masjidka Aabe يعني ninkan isaga ah oo baano Xaaji Baano waa nin orto dhowida dhan lagu yaqaan markii isaga laga soo laabtay dabadoonnimadiisa iyo durqnimadiisa aad ka aha markuu masaajidka ku soo baxay masaajid yar Ar-Rahma Allah oo ku dhaxyaaris Ar-Rahmadan weyn ma aha oo wajar ku dhaxyar kooka waxa jir durqbada ku dhaxyaalo sharafada yar oo durqbada ay ku tugtaan kii ku soo baxay banaankan ku helna marka laakiin waa la soo confirm gareeyay ninka sala ala culaali markii dambe waxay kooxda Al-Shabaab u soo bedeleen Maxamed Xaaji inuu ka shaqeeyo magaalada Muqdisho oo uu sheegay in waqtigaasi uu haysan jiray kooxda waxdishan inuu magaciisa ku sheegay Cabdiraxmaan oo ay ku xigeenna u hayeen Cabdi Majiid iyo Cabdi Muuse kuwaasoo midna la qabtay midna la dilay sanadkii 2012 Maxamed Xaaji markii ugu horeysay uu shaqo bilaabay waxay isku koox noqdeen Galadila iyo Mooryaanka oo labadaba loogu soo xulay inay Muqdisho kala yaqaanaan waxaana hubhayso u ahayd Felis Maco oo ah xukunsana ku jirta xabsiga dhexe ee Muqdisho ana shakhsiyadan galad ninkan aan ku soo gaaray wax yar ana ku soo gaaray khilaafkii jugti wixii dhacday waliyaha kii kadib wixii dhan waa la bedelay galad aan loo keenay oo Galadilay galada waxaan Allah ila shaqeysta ergiin hadda asaasta magaalada waa ka saayay wax ka qabta sida dadka loo asaasay oo wuxuu dhahay garad niman jabhada oo isku jirteen xilliga laakiin aad ku yaqaan aad aqoonina jiro oo guur hadda hoostagaan waa laba nin oo active ah ku keenay yiri isla shaqeysta saddexdiin labadii qof ee waqtigaasi la shaqeynayay Maxamed Xaaji hadda galad waxa uu ka baxay Al-Shabaab halka Mooryaankana la baadigoobayo ay sheegeen booliska gobolka Banaadir inay hayaan macluumaad ku filan in la soo qabto oo ay ka mid tahay sawirkiisa Maxamed Xaaji waxa uu ka bilaabay Muqdisho hawlihiisii dilalka dhagarta waxa uu Muqdisho ku dilay dad badan oo haldoor u ahaa bulshadan kuwaasoo isugu jiray saraakiil shaqaale dawladeed iyo dad kale oo bulshada waxgal u ahaa dadka haldoorka uu ku dilay Muqdisho waxa ka mid ahaa Generaal Cabdullaahi Maxamed Sheekh Xasan Quruurux oo ahaa sargaal ciidan oo waxtar u lahaa dalkan waxa uu jananka ku dilay masjid ku yaala Waabari isagoo ka soo baxay salaadii cishaa maadaama uu sheegay in maqribkii uu ku adkaaday dilku sabab la xiriira ciidamada ammaanka oo ka dhawaaca
جنرال كان ماشي سوف ديسنا مقرب كعشاء وكتكنا مقرب كما لدي كرا او دغمدو u dhow yahay degmadana ciyaalkan rad ka joogo agaas isha madow waata marka waa cisho marka niyo dhowr mar isku daynay waxa la isku heshiiyay hadii ninka bubuk la maqlo degmadu u dhowdahay isgoosada day xiraan inta laga baxa ragina ila lagu hayaan hal luuq waxa jir marka mar walba luuqa xeelada la lahaado oo lagu baxsada jiro oo la calada wadooyinka la xirxiro oo bajaajta la barbaaray dhalinyarada iyaga waxooda wataan meesha la soo maray dilka jenaraal quruurux waxa uu kamid ahaa dhagarii ugu cuslaa uu sameeyay maxamed xaaji ilka case waxa uuna ka hor dilkaasi diyaarsaday laba koox oo bamgacmeedyo ku kala tuura xarunta degmada Waabari iyo bar ciidan oo ka dhaweyd meesha si uusan gurmad ugu imaan inta dhagarta dilka ay socoto kuwaas oo markii uu isagu teleefanada ka baaqay tuuray bamgacmeedyada kadibna uu isagu fushaday hawshii u socday oo ahayd dilka jananka masaajidka cisho ku tugtaa marka qorshaha waxa la keenay waa la fariistay shir anaga waxaan dhahay shir hoosh adankan ay taala soo qabsan adankan ay taala mar muqdisho idinka dhex joogna waxaan wixii hub iyo fan loo baahday diyaar waa laakiin hoosh adanka wada جنرالك مركا هوش أنا وصل شوتي نيرادا مقدس أو كلي خان بدأ أنا سلمان أنا وصل شوتي سلمان ترى حوير النيو جنرال كرتا حل ملوجا ذكر لون ملوجا ذكر سدح لوجا هذا إلى لبوا وطع مركا ستافك لبوا واي حل نسقوا نقول بشغلي سقف صدا نقول بهلوكو هذا مركا أنا حكون فكري دقمدا أودو waxaan nahay markan iyo macquul ma degmada hal dhagax lagu qabto oo mashquulin ah hatta albaabka ay isaga dhufto say barto intay difaac ku garan xabada ay u tooraan isku qasanto ugaaska wuxuu soo jeediyay degmada hadii lagu dhufanayo kuwa kale oo bundadana gaaray meesha u yaalo jidka dhacday soo dhaqaajinayaan ayagana aan ku dhufana markii la isku raacay talada raafiyay dhagaxyadii la keenay oo soo diyaar garoobay saddex markii loo soo diyaar garow ugaaska caawab hal loo keensaday hal qof loo keensaday maxalli jiray jananka hal staff wata bas sayidka iskuul tugtay markii cishaha oo laga bixin rabo waa u baaqayna dhalinyarada markaan u baaqno baaq aan ku wada dhufan labada dhalinyaro in jugta ay dhacdo kadibna xabada lagu xijiyay saas ay ahayd si xabada dhan ay u dhumaanba ila jug markii xabada la wada yeerna waqti ciidanka yaa tuuray meeshina ku dhax qarsantaa la rabay kadib sidii jugtiya dhacday oo ku qaban ugaaska iskool daan soo siiyay الله naxariistay jenaraal maxamuud xaaji cali oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada ayaa kamid ahaa dadkii uu dilay maxamed xaaji waxaana uu ku dilay degmada Boondheere xilli uu jananku hor fadhiyay gurigiisa waxa soo gudbiyay wiil mootola soo gudbiyay oo dhahay in janana meeshan joogo markaan tagay oo aan shaqada soo fiirsanay dhahayniyo soo fiir dhalinyarada xagga gudeen Boondheere meesha ugu xarunta badan waa dawladda maxaa la jiray soo fiiri shaqada markaan tagay oo maxay toole aan soo fiiriyay meesha way adag tahay aad iyo adkaatay waxaanay ninkan general ma okay maxaa anaka banaan iska fadhiy markaan general ma aan dhahayniyo oo ku qaldamaysid hore waxa ma ogide magaciisa sheegayna xataa nashaqaas qaado ninka janam ma anaka sarkaal waa dhici karto ninkan jan wala ku soo fadhiisanay hal wiil la fadhiisanay ma jiraan meesha wax ma baro cunin buuligeeda taasoo kalsoonidaas isku qabaa bas okay waay marka galab aan rabnay galab oo soo rigalweys subax guriga loo dhisaya subax ani iyo shoori iyo waxa imaanay iyo ugaas shaqada ilaan shaqa janna ma mugti ilmo yareer ma kaysan kartid waa ka dhaawacmi karaan ka dhiman karaan ragii waaweynaad in xaniyooda fuulaha markan meesha imaanay janankii isaga aha jananka waa fadhiya subax waa hadii ani iyo ugaasan xiranay shooriin waa u xiran tahay shoori nooha xaq u taalo noohadan ka qaadan aan ku yiri ma nooha ma la bixi karo sinaadeen ay xirtaan isgooska baxbada dhacamay waa la bixi karaan ku yiri waa jafeena dadna la laafan oo tuureenanda bas go'aan ku qaadanay noohadan qaadanay haddaan aadnaba waxa arkoyaa guduhu galay dhagaxad xagga agmarna guruhu galay ninka shooriga kor naga daawana ma dhahay ninka guriga oo gashan guriga wax ku jirman qaan oo kaadaan waxa soo baxay janankii oo janankiisa wata oo dharkii militariga wata ima aqaaniye waxa digaha ugu toban iskoolo biljam fiican wata imid kale staff
الوطن يعني غير وطن هاك وطن أصل صباح وراني مكو صباح إننا نرص على نكنا وين كسكيل علي بس كانوا وطن بس إنه هذا الجيران أنا أقول أنفلين فك ده لو صار بهم ما تهوني بمكانك أسفيرين وأصلافنا يعني هوش أصلا صوب عن سيك دوني نوع نخد من كان ماشي نوع فدين عادي هذا بس كله سوقاتي سجى خلص تهدي له دارك ودي بقول لك إن ما عندك كلامات ما عندك كلامات أصلا سدي صوبلانك فديه بوك أنسيني ما هذا اللابتوب صار اللابتوب كان صوت دفي وصار عرري كوفي عن كل قلم ربنا والله يقانا كوفي عن كل قلم وصار عرري xeer ilaaliye xigeenka qaranka maxamed cabdiraxmaan oo gurigiisa ka baxay una socday hawshiisa u khidmaynta shacabka ayay ku dileen waddo ka soo baxda gurigiisa iyagoo kadibna ku baxsaday gaarigiisa balse iska dhigay gaarigaasi markii jidadka oo dhan laga xiray wuxuuna sheegay in xeer ilaaliyaha ay ogaadeen xilkiisa markii ay dileen kadib isaga ayaana gacantiisa ku dilay maxamed xaaji xeer ilaaliyaha bajaajka aan ka soo deganay gaari kama istabanay كاي ويسون كلا بيكسرين إنك كلا إلى أنا بجناي إنك ما هذا قلنا صوت بس هذا قل إنك كلا إلى الله أنا فرنا صاحبه ومشغول أنا إنك عدو وتابت ومشغول زي مكتب بس كاي صنع عزيز هذيل ولا قاعد كرر كذا إنك كلا إنه مركنك إلى عليه واحد دلائي إنه إلى عليه أصلا كرر سوى كان بد نقول كان هي حاجة قل أنا قل أنا قاعد أنا قل هي إنك قاعد دمر مش صوت حقله أبناء كذا بأستاجي سمياب دش هذا عي كان كلا تقول هاي بقى قبتي صدق أنا قارك صدق صدق أنت صدقتي ومنطقي وفديستك عيو سكوت درس من سوى عبد المركب وقاعد عقد منك جد وجدنا ولا مرة وقت تينا دوا الله أذكر الله عنك وإحنا ملوهين عن ملاء قوسين كدب وحمقلنا ما قدرنا كما قدرنا نك أو ده يور هبرة ننا تلفون قول له نجي سنة أنا قوم بيشتكي مرة دبك ورنيك يستجع هنيك كلا ولا صارنايا سيلون عفوا مركب نك كلا ورنيك كلا ما أخوزنا الله جد دي بنك فاهم تونا نك حتى إنه وحاها فلولا أنا أوغان وديك اللي نفتر كيس سجى دي بنك أوغان تونا نك جاري اللي صارنا إنه الشقة وحكلها يعني حرر عليه محكمة ونفتر كشغينا أوغاني فاكتور لكن لما هو sidoo kale dilka taliyada saldhigga Wardhiigle ayuu wax ku ogaa in kastoo uusan isagu ka mid ahayn kooxda wax dishay wuxuuse ku doodayaa in kooxda wax dishay u dejiyaan xeelada ay ku qiyaameeyaan taliyaha kuna dilaan in ragga meesha uu ninkan ugaas yar kale saalax uu meesha mooto ku barbaray mooto barbarad laga dhigay dabada talo mara hubkii uu soo dahay dib u imaado ay qaateen furtay موت أوجس مش حكو بربرة صالح وحكو دقيقة عن الموت مش حكو بربرة عبارة مش جوجا رجعت موت الكوت ولا معك سانسة عمران سليم مش جوجا دوالي إيش سان كسوهن ليه sometimes نحن كيس خوفك أنا عنا حتى ما نقام maxamed xaaji waxa uu sidoo kale sheegtay inuu wax ka ogaa dilkii aamina oo ahayd baare ka tirsanayd nisa waxayna ahayd qofkii gacanta ku hayay kiiskiisa markan ka horeysay la soo xiray maxamed xaaji aamina meel aan ku arki lahaa ana ma dhaafeen dadka ugu lambar 1 ka ah xataa ana ogta taas waqti faham aamina rag fara badan horta xaniya qabato oo markii meesha joogtay wax badan ay halaysan waxa kamid ah yar la xukumay oo la dhahay maxamed mare تقن حمر marka milyan qof baar oo soo noqoto in lagu fiirinayo aamina waxay u tin ku ahayd al-shabaab waxayna dhamaantood u arkayeen qof khatar ku ah maleeshiyaadkooda la xiro isla markaana aan marna gorgortan ka galin shaqada ay qaranka u haysay waxayna sidoo kale caqabad u arkayeen inay aamina waqti dheer joogto baarista iyagoo arkayeen qof marka la soo xiro ay haddana sanad kadib markii la soo xiro isla iyadii joogto ay aqoonsan karto qofkaasi maxamed xaaji ilkaxase waxa uu sheegay in kooxda aamina dishay oo isagu geeyay goobta ayna hagayso qof dumar oo is yaqaaneen mid ka mid ah dilayaasha waxaana dilkaasi fuliyay sida uu sheegay ugaaska oo ah qofka sawirkiisa aragtaan oo la baadi goobayo iyo cabdullaahi kuusane oo isagana sawirkiisa aad aragtaan oo la baadi goobayo iyadoo hubka wax lagu dilayna ay watay maryan oo ahaa cabdullaahi kuusane hooyadiis isla markaana xaaska uu qaba salmaan oo kamida shabakadan la hayo kiiska aamina wuxuu u dhacay san u sheegay hal shay baan ku diray
وحقيق اللي صوحي ولا عيالك ود جيمش مالن عطوا ما كوني كري انت in aniga ugaas iyo groupkiisa aan waday oo aan dhex geemisha aan banaanka kista daawasho soo qabta gudahan uu ku jiro koosane oo koosana markaasna uu hooyadiisa wacay naaga oo sheegaysa arinta waxaana shaki iga jirin aamina qofka kalaaska la fadhiyo inuu gudbiyo hadalkan hatta banaanka uu joogo ku dhaana aragtida marka kaasha fasalka la fadhiinayta wanda waxaana say qiyaasayaa qofka fasalka la fadhiyo inuu soo kacay soo istaagay oo banaanka uu soo baxay oo koosana la hadlay kadibna ku laabtay yaani lamaanta uu bixinay kadibna waa saasay u dhacday dumar waa كوسنا على صح هذا الشيء كده وصل عبد كده بنقول إيه صدق هذا المرة الصاق له كوسنا بحوك استاجب الباب لا وضع هو شيء قش يعني لا بقى قش يقول صدق يكوس على الكاس يمكن حفل مع تاني كلام بتاعنا هتفضل في أردن سمي أردن كوسنا وفي سنة halkan waa jaamacadda Soomaaliya kanina waa fasalkii ay dhiganaysay Aamina lagu dhex dilay waxayna maamulka jaamacadda ii sheegeen in fasalkaasi wax lagu barto ay ugu dambeysay maalinkii lagu dhex dilay Aamino kadib markii ay diideen ardaydii kale ee jaamacadda inay wax ku dhigtaan fasal lagu dhex dilay mid ka mid ah ardaydooda ardayad Aamina waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada leena hami fog waxayna dhiganaysay kulliyadda shareecada iyadoona jaamacadda Soomaaliya ay ila wadaageen natiijooyinka imtixaanaadkii ay gashay ka hor intii aan la dilin maxamed xaaji ilka xase waxa uu aaminsan yahay in dadaalada ciidamada ammaanka iyo baraha koontarool ee la badiyay ay dhabarjab ku noqdeen kooxda waxayna taasi meesha ka saartay kooxdii wadan jirtay gaadiidka lagu horjaro gaadiidka kale ee kadibna saas lagu dilo qofka gaariga wata isagoo sheegay in hawlgallada noocaasa ay gabi ahaanba kooxdu joojisay sariirka waa balaarta sariirka yani waa baabay hadaadhe fashilkii suceeb iyo ka waxa ku dhacay fashil fara badan kadib iyo goobaha oo ciidanka checkpointooda la badiyay inuu waxay jirto mar badi ex control aan gaarin xaniyaan lahayn waqti hadee ex control dhaafsatay xataa galmudugna kan wuxuu ku sameeyo masaalan hada مثلا استراتيجية أمنية ay dejiyeen saraakiisha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ku qasabtay al-shabaab inay yaraadaan falalkooda argagixiso waxaana meel kasta la dhigay dhalinyaro boolis u heegana ilaalinta amniga shacabka kuwaasoo ku qasbay maleeshiyada al-shabaab inay isaga firxadaan magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya waxay samaysay wax kastoo ay ku xaqiijinayso ammaanka muwaadiniinta waxayna meesha ka saartay falalkii argagixisanimo ee gaadiidka lagu horjeeray gaadiidka sida al-shabaab laftigooda qirayaan waxayna ka dalbanayaan shacabka inay ka gacan siiyaan ammaanka wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq ayaa sharaxaya guulaha arrimahaas ay ka gaareen ciidamada dawladda Soomaaliya sida aad ogtahay waxa ay sameyn jireen waayadii hore markii ay ficil xun inay geystaan ay ka cararaan laakiin waayadan dambe laamaha ammaanka waxa ay la soo baxeen la falgalkii ugu adkaa cid allaale cidii wax geysatana gacanta lagu qabtaa cid allaale cidii wax isku dayi doontana waxaan u sheegayaa inaysan ka badbaadinin laamaha ammaanka haddii ay falka ay geystaanna aysan ka baxsan doonin maxamed xaaji ilka xase isagoo macallin jaamacadeeda ayuu ku dhiiraday inuu magaalada wax ku dhex dilo wuxuuna ku doodayaa inayba dadka dhan maqan yihiin oo aysan aqoonsan marka uu wax dilayo waa iska jirtaa mucjiso aan saxood marka wax dilis dadka ku arkayaan meesha wax ku dishay maalin kala daymaad caadi qalbiga wax markana waa kala yaacay ma aqaanani isla maalinkii birmaanka meesha imaan shaw ku cabeen dadka ka sheekeena mar dilka dadka kaliya kuma ekayn maxamed waxa uu sii dheeraa inuu ahaa tababare ku xarbiya dhalinyarada falalka argagixisanimo ee dilalka shacabka ay ka mid yihiin wuxuuna ka dhigtay wax ciyaar ah inuu dadka dilo isagoo soo kaxayn jiray dhalinyaro uu ku biiriya al-shabaab kadibna si toos ah u tusi jiray isagoo wax dilaya si ay ugu daydaan isagoona ku oran jiray waan idin dhigayaa ee dhammaystira taasoo ula jeedo inuu qofka u dhaawacayo iyaguna dhammaystirayaan marka dhahan nooyaantan wadan iyo inoo laba wiil cusub la soo wadaa aad u fiican oo ladan soo jikmay bal shaqo ma bari kartaan labadaas wiil hada qof darwala u sameeyay shaqo ma bari kartaan ha aan loo keenaa marka dadka marka dad
tabar ahaan dhameystiran waa laakiin baraatikada male fiyor ahaan way dhameystiran waa la baraa marka shaqada kama keysana mas'uuliyadan keena anaga wadan shaqada haye waladan baraa okay ana garaada igu xig oo ku dhigan ko dhameystiran meesha ka dhaha furo kan darwal ku xal xagga istaagaysa aad waa kaas ugu haye bash wala bilaabay ninka maalinka labaad qof kala keena maalinka saddexaad marka active ay noqdaan isku filantii markii loo badaatam marka magacaan kula shaqeynaa ragaas anad Abdullah Ahmed kula shaqeynaa ma yaqaanaan laakiin dadka uu tababarka noocaasa siiyey waxaa ka mid ah wiilkan oo lagu magacaabo Shucayb kaasoo hortiisa dilal ku sameeyey marka waxaa imaadinay how in la baxaa la rabaa oo maxaa la dhihi jiray dooro la aado waxaan dhahay ana markii ilaa hadda ana in lambarleen kala mareena koodhe waxaan dhahay lambar iyo macluumaadaan kala mareena ani ziyaado kale isoo gelinaan dhahay xamar hadaan ka baxo inuu dadka ay macnaa horta waxay ku leeyihiin meeshaas aadade tahriiba aadade inta ka baxaade wax saas amal sheeg laakiin anna waan dareensanahay adina waxaan isleeyahay maxaa la jirinayo qof waa warkaaga waa la fahmi doonaa mise system waa ka qaldami doonaa waalid xaqiisa ahaato mise si kala han noqoto waxaa la inaan soo baxdo maxaa la jiray meeshaas imaadada oo aad ashar qaadatiida muhiim ah waxaan leeyahay aan xamarka ma bixi karo haweenka ma bixi karo maalinka ma bixi karo xamar dhaxdiisa waxaan leeyahay meeshaas dadka maxaa isku sheegaa wadnaan lahayn meesha kama soo qaaday wax kale oo meeshaas hadda maan ziyaadeen shaqada qabashadeeda leemahano qabashadeeda marka waxaa marka isku fahanay tababar iyo waxaas iyo in wax lagu soo fahansiyo 10 oo wax fahansiin wax kale ma baahnaan ahaniyo ma fahantay ana waa inaan hadda maanta 10 ay akhrisida wax iga dhaadhicisay ani hadda uma baahnaan marka hadii ay si kale ay jirto ana safar ma soo aadi karo xumaana aysan naga noqonayna mis wuxuu dhahay marka kulay waa isku noqdeen kulay ragaas waxa waa rag imtixaan waa isku laabteen marka waxa la horta ninka waa laga wareysanaa barnaamijyada ayaga isla wada hadlayaan saan jeclahay anana aan ogeyn laakiinse ugu dambeyn markay soo wada fahmeen waxay soo go'aansadeen waxaan dhihi jiray in ay shayba noqoto gartaas ay macnaha macquul ay noqoto uu soo celiyay wuxuu dhahay maxaa la dhihi jiray inay shaqada iyo qaabkeeda iyo nooc loo qabanayo iyo wax dhan waa lagu fahansiiyaa سيل إفانسينا نكا سامعنا مع اللي يجري صاحبك راعيسا سو مراتك أهانة تفهمي عربية koox la socota oo hogaaminaya Maxamed Xaajiil Kaxase waxay isku dayeen inay dilaan hooyo ilmo ku korsanaysa ka ganacsiga jaadka agaarka siliga Ameerikaanka halkaas oo ay markii ay kor tageen hooyadaasi ay dhamaantood u dhixi waayeen basooladii ay wateen waa kuwan kooxdii basooladu u dhixi waayeen oo mid noogu sharaxaya wixii maalinkaas ku dhaxay horta intaan aqaan horta waxayna hayeen ilkaas Arab Ahmed iyo aniga Yaxya laakiin way Ismaaciil saxda markii oo islaantan inta la aadan ka hor Ahmed ayaan isku xiray ilkaas wuxuu dhahay waxa la shaqeynaysaa ninkan kula shaqeynayo wuxuu dhahay meeshaas naagtaas oo irgada wax soo dooratay iyo waa liishan nolol sharaxay irgada soo dooratay islaantaas ayaan ina aadina rabnaa way hayade Ahmed ayaa kula jiro dhahay Ahmed iyo aniga waa soo aadni marka hore ilkaas ayaa ibar islaanta jaada yagada irgada soo dooratay ii sheeg Ahmed isna wuu bar laakiin aniga markii dibeysa Ahmed ayaa israacin waa soo waaneenay waa iimaanayeen marna way maqnid ida maqnid oo la way baaqati marna markay aadna ida inta markii la helo kadib waa la waanay maalinka dibeysiin ugu dambeysay waa la helay habeenay ahayd maqrab markii la soo dugtay kadib meeshii markaa tagnay oo irtijaadki kadibna meeshii ayaan howlgalkii in la furiyaal rabi howlgalkii istulooyinkii iyo wixii aan ka tibeen kadib anaga wax ka soo tagnay wax ka soo cararnay meeshii xoogaa yad buuq yar ka meeshii wax ka soo kala cararnay kadibna anagoo carreena ayaa ciidamada dawladda dhaxda u galnay horta muddo waan ka soo qaaday waxaan keenay cabirka siliga tala gaarin bacaad ahayd meesha ku deji iga degan adiga 10 daqiiqo ma soo wareegan asoo qaylahay soo baxay ilkaasa niyo waa baasha ka halaaday niyo ka gaarayna meesha ka tagan dad ha qaadan koorsa daasho shaqo qaadan haybayaan ay mana diidi kartid waa soo qaaday asoo kontaroolka ku soo dhacay marka kontaroolka waa askarta nasteexo ku soo dhacay
niyo aan horta systemka qabasho ahaan marka aan kuu sheego oo haddii meel kasta la aado mise meel kasta la soo maro horta wax aan karsamaynin waxay ahayd anagoo shaqadaas naga soo baaqatay kidibkaas u imaaday ay tahay meeshan cakaaro taqaane ay tahay ya meesha lagu qaban doonana kullee ay tahay madiina salkeeda ay tahay oo san wixii oo qabashadeena iyo intaasna aysan u dhaxaynin wax aan 10 daqiiqo dhameen hataa haddii aan fiirino 3 daqiiqo camal soo cararayna oo orod fiican ah marka meesha imaana bajaajkaas 7 daqiiqo ma aanan saarnayn si aan hadda aan qiyaasay markii been banaanka laga tago ma jeedaa marka umuum isku dar intaas ay baash hooyada ay rabeen inay dilaan kooxdan oo lagu magacaabo Baarliin ayaa isaga xarartay dalka iyadoo ka tagtay carruurtii ay u xamaalanaysay kadib markii ay u baqday nafteeda waxayna iyadoo joogto Turkiga la wadaagtay barnaamijka Gungaar muuqaal kooban oo uga hadlayso wixii ku dhacay maalinkaasi iyo hadda sida xaalkeedu yahay goor saacada ay tahay halka saac oo habeenimo ayaa ragay imaadan hubaysan alxamdulilah rabbil caalamiin waan ka noolahay halka madaxaabay xabadii qabteen bistoolada dib baan iga sheegi doonaa makaaruf halkaas ay iga qabteen xabadii makaarufka bistooladii makaarufkeedu way dhici weysay wuu ila soo wareegay intuu iga qabtay xukunka ilaahay way dhici weysay bacdeen kii labaad markuu ninkii koowaad 2 xabadood ugu qabtay ninkii labaad uu soo wareegay kii kala imaaday oo labaad halka uu iga qabtay kilida ah bistooladaas waxa la yaateetay xabadii way dhici weysay qadarta rabbi uu iga soo wareegay halka laabta uu iga qabtay weysay sayaniga ay waan maxayr shay ragina ilaamaha abniga ay gacanta u galeen markaas ba control ku dhacay aniga markay meeshaas qado korontada iga maqneed ka bacdiya gacanta meeshii laga qabtay markay gacanta meeshii laga qabtay kulli adkayga dambeeyay targad waxa laga dhignay ma aqaano marka hadda aan cid targad ka dhigaynin sharciga islaamka kama weynin oo Soomaaliyeed konton habeen umul ah ayaan ahaa ciyaalkayga meel kuma sheega hadda waxaan biilayay oo markaas aan qof u baxay oo beel iga sugayay hooyaday waayeel ah walaalahay sabool waxa bahaysanin ciyaalkayga yaryariska oo midka uu yar oo markaas umusha ah kula jiray konton habeen ayaan umul ahaa intaas baan idin sheegayaa sharciga islaamka kama weyni dhagarta iyo dilka dadka waxa soo diyaariya koox ay u yaqaanaan istikhbaaraad waxaana kooxdaasi xukuma ninkan oo lagu magacaabo Salmaan kaasoo diiday inuu la hadlo barnaamijka Gungaar balse Salmaan ugu dambeyntii waxa uu qiraal ka hor sameeyay fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya halkaas oo uu ka sheegay doorkiisa al-shabaabnimo aniga waa kamid ah laakiin aqeed ahaan kama mid ahayn qasab awgiisa aan ururkan ugu dhiray aniga saaxiib aan nahay maxamed xaaji liiraada ay u qasbay inaan ku biiro shabaab asigaana barnaamijkaas la waday waxaan u qaabisnaa oo kaliya lacagaas oo kaliya akoonkii bis ay isticmaali jireen wax hadda shaqo aan qabtin ma jirto Hashim waxa uu ka mid yahay shabakada Maxamed Xaaji la shaqeynayay waxa uu qaabilsanaa hagida iyo saaminta goobaha ay dilalka ka dhacayaan waxaana uu ahaa hagii ugu kalsoonida badnaa Xaaji waliba asaga ayaa ku tashkiiliyay inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab marka ninkaasna saaxiibka waa taqaana horena u taqaanay ururkaas inuu ka tirsanaa anaasan saaxiib aan nahay marka hadda ururkaas waaba ka tirsanaa waa la shaqeeyaa marka adigana waxaan jeclaan lahaa in kasto saaxiibkayga aad tahay ina arintaas aan kugu tashkiiliyo oo adiga go'aan ka gaartid isla markii aniga go'aan degdeg ma gaarin waxaan lahayd kulli aniga hadda nin iska shaqeystaan xaasna waa qabaa markaas waxaan ka shaqeeyaa footidiyaan ka shaqeeyaa marka waxaan lahayd hawaan waa laga fiican yahay wax hadda aniga arin qidda askari iyo xaas iyo mana aqaano haddana kuma degdegi karo kulli nin xaas qoon waa kulli dib ma loo dhaay laakiin qaabka u malaysa ma qaab kale nooc kale loo shaqeeyaa jirto oo adoo hooshaad wato ciddaadan aysan ku ogaanaynin oo iska fiican
ayaa jirto magaalkaana joogo marka qaabkaas aan ku sheega aday ku qancayso kulay ana horta waa kasoo fikiraa si wax u jira isha marka qaabku ii sheegay qaabka amigu ii sheegay magaal qaabka loo shaqeynayo hoolasho la qabanayo qaab loo qabanayo waxyaalahaas uu ii sheegay marka faadumo oo magaceeda afgarashada yahay korneelad faadumo ama cosabo waxay u qaabilsanayd shabakadan inay u soo shirqoosho dadka ay rabaan inay dilaan waxayna ballamin jirtay nimanka si kor looga arko iyadoona ka mid ahayd madaniga xamar jajab iyo ururka hooyooyinka qaranka jilcanta iska dhaaf aniga qarax ma ku dhiibanaan hubkan ii qaad yahay ma ku dhahay degmadaas waxaan ka rabaa wixii ka dhacayo in xilliga xalfadda ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilliga ay degmada soo galayaan xilliga ay ka tagayaan sida badan madaxa idii timaado inaa ii soo sheegtid oo maxaan ku ilaa saas oo shaqada ay ila wadadaan rabaa waxaas la ii soo sheeg bis ani wax kale ay qaban faadumo waxay diri jirtay sawirada dadka ay al-shabaab doonayaan iyadoona qaarkood sukaansi ahaan ula macaamili jirtay markuu ii soo dhigay sawiradii madaniga saasaan ugu dhigay madaniga marka saas ugu dhigay marka waxaa jiray wiil oo madaniga ka gooni ahay sawirkaas oo mootoolo ahay ayaa jiray asna waa u dhigay asiga mootadiisaan u dhigay taargadiisaan u dhigay kaas mayna arkin weli ma arkin waa la joogay ayadoo marka sidii laysku moogyahay haddana waxuu ii soo diray wiilkan oo taliya qaybka ahaa faadumo waxa ay ashirqool u diyaarisay nin iyada ay kala tageen kaasoo ay u sheegtay inay uuru leedahay taasoo aan waxba ka jirin kadibna markii ay ballamisay waxay kor ka tusay koox ka tirsan al-shabaab si ay u aqoonsadaan marka ay dilayaan soo wacay isaga wuxuu dhahay hadaad uur leedahay inay bolihu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa ani marka hadalkaas waan ka xanaaqay waxaan dhahay inay bolihu saxyiin in kale isbitaal ku geynaa iflagaadan arkaan dhahay marka wuxuu yiri ima maalo ima wiri xaar ma ku iimaanayni waa ka xanaaqay maalinkaas xaar ku iimaanayni marka habeenku soo wacay wuxuu dhahay walaalay waa kugu la kaftamahay hadalkaas iska dhaaf iyo imo wixii oo dambiyoon galnay waxaan ku yiraahdaa iska kiyafi xaaladan inay meesheeda kasii socota rajaynayna oon reerka aan ka doono oo waxaan ku raxmatadan ku geystan aan ka tetero marka iyo imo sawiradiisa markaas waa leesoo diro taleefankii ku jirin markuu isoo wacay amiirka u sheegay xaalisaas ay jirto wiilkaas maanta aad rabaa socda xafidiis socdahan hayo waa arkayna warjiiro qarab ku ballan waa arkayna isoo doonan lahay oo isoo doonay ayagana sidii ay kor u arkeen xaafadda aan ugu soo sheekaysan waxaan dhawraal warkii hore la wadahay kala day waa ka soo laabtay gurigaan u soo laabtay nimankaana way arkeen waxyaabaha cajiibka aan ku ogaaday faadumo waxaa ka mid ahayd inay aaminsan tahay khuraafaad iyadoona sidatay warqadan oo ay ku sheegtay inay ka xijaabayso dowladda inay ogaato howlaha ay waddo taasoo sida muuqata ah sixir iyo wax la halmaala haashim oo ka mid ah qaybta sahanka ee kooxda al-shabaab mar hadda ka hor la xiray maxamed xaaji waxa uu ahaa shakhsigii u dhexeeyey maxamed aabihiis iyo kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay inuu mar kasta la xiriiri jiray aabba xaaji una sheegi jiray in wax kasta oo dhaqaalaha u baahdo ay ka caawin doonaan si loo soo daayo xaaji aabihiis waxaan dhihi jiray xaalad intay maray meel bis waxaan u sheegi jiray inay ardaydii ama dhallinyartii ururka goolmarar dhallinyarta inay wax walba ay garab taagan hadii loo baado qarash hadii loo baado wax walba ana u sheegayna wiilkiisa meeshii lacag hadii loo baado laga helayo dadka caawinayo aan qarinayo intaas aan u sheegi jiray laakiin lacag isku day jiray inaan oday hadii loo baahdo in soo dhiyo lacag lagu furdaaminayo dhismidiisa laakiin aabbaha dhalay maxamed xaaji oo aan la kulmay waxa uu diiday in ninkan ay wax wada hadal ah galeen isaguna uu iskiis ugu dadaalay sii daynta wiilkiisa wiilka hadda kahor waa iska jirtay
ilmaha dale xiri yani wiil raaf uu galay raaf waa iska jiray marka raaf waa la galaa xirmo oo raaf waa la galaa sida caadiga ah raafta waxaa jira wax uu gal la yidhaahdo lagu soo qabto iyo wax oo macnaha dhacdo fal of sameeyey ama oo dad sameeyey lagu tumay oo wagaal la geeyay la duubaayo iyo waxaa jiro howlgal guud oo la socdo howlgal guud lagu socdo meelahaas lagu xiray marka dambi maana waxna waa lagu waayay وأنا الدم اللي هنا هلكم الدم اللي هنا يعني ألسي وايد ما جبت أحد كاجا حتى سمكة سيدتي maxamed xaaji waxa uu qabaa in horjoogayaashooda aysan ogoleen carruurtoodu inay galaan dhibka iyagu ku jiraan taasna ay tahay tuun ay qabaan balse aysan kor u sheegi karin sababo la xiriira xabsi ay qabaan weydiina ilmahoodii aaw ilmahoodii waa laga dheereeyaa maxaa yeelay ayagaa lagu korraadina maraykana canuga ninka ku korraadin karo dhinacaas way fikiraan xaqiiqda laakiin saas ma ahan xaqiiqda waxaa tan wadda canugiisa waa ku kulaanaya tusaale ahaan cali jabal ciyaarkiisa dhan way u kala maqan yihiin marka laga rabo wiilkiisa lala duqeynayo al-shabaab waxay maxamed xaaji ilka xase ku dareen haweenay uu ka dhintay ninkii isku qarxiyay hotel ambassador oo lagu magacaabo qaali cabdirasaaq taasoo hooyadeedna ay ku jirto xabsiga dhexe loona xukumay al-shabaabnimo iyo hubhayn qaybtii koowaad ee barnaamijkeenna gungaar waa naga intaa qaybta labaad oo aan uga hadlayno siday wax u dhagraan kooxda al-shabaab kala soco habeen dambe isla 8 fiidnimo telefishinka qaranka